كسر حتى ما تعرف لكن سكسر نحبح ان بيت الله كسر نحبح عادك كسر عينس او قبلها كسر جاي فينس او ويلش كسر جاي فينس او قف انا وناق هذا كشيء انه سجري وعصب على شنطاي ها حمر الجوع هاي وكليه هبلاي حمر انا اسكو ما هنيسن مليون او شيء شيء خطر وهذا شيخ ما هي شيخ لما حاس دعيد اسكو باش واي ها قف فيري دينته وانا حريص بدر يا قف كين لا كواه هبلاي ما قلت انت اللي ما حتى انت كو عين لبالي كعاني وانا ما انا محقول هذه اسمي اي فيري تما حد يقول في هذه لا دفن يا شنطاي برادر اني اديغا waxaan ku wada kulmaynaa banaadir isgooska haye shantayo balazarasa asaga ma balaso way inta taagay telefonkiisa waa xasuustay wala wiilowda waxa dhacday oo ilaa walaal sheekhaalo goynid inuu isku banaadir ku lago salaam alaykum ya adiga oo sheego لكن طلعت كنت تدور عليه بلط اللي قالوا قصة على كلهم شنطايو اي واسهلن اني اديغا اسوس باندر اسku sugan ani adiga nimo tabart inta nimo tabarta اي taka maxaad نبو tabarta نبو tagta ma nimo tagta iska leeyahay aba tabana isgooska banaanta inoo balan ah اي adig un telefoonka dansanin اي ها اي هذا كل واحد عنده شيء مك مدى ساعين فيسبوك تاعي غسل يا رالي هذا صوت تلفون كنت ستورة غسل يا انا بلطت علي بالكل قال هاي اي معقول عليه لمبرك عاد عادي ود زي marka waxa way shantay ani adigu waxa inoo balan ah in aan isgooska baad isugu imaan ad telefoonka disan كله إن هرتو كوسو جوابي دونا إيدلي يا أبو جعد دونك جواب يوتيوب فرما أو كوسو أصل ما الشيخ وحال ربي كوسو قلا شيخ شنطاي وحال ربي إنه بلانتنا أو حقوليه مقدشة بلانتا إماتين قرونكو كوسو قا ها قرونكو كوسو قا قرونك جوم ولي الله بأني مكان باش أو شعبك عادي هالمرة مرب أنت كذا بيبي ذا كدبني dadka shaqadu u shaqeynay waxaad bil burufa watan meesha ka daawanaysa asbaab hadina wala ilo ay ku tahay ya ma qof wada ku diimta inta taagay qofkii baa darwo kale aan baqan wallahi ma ku sheegin darwo kale ma qamo mijiis waa daawada wuxuu baabijay intuu telefoon ii qawaado ma ii gambi waa kortay markii kale darwo ka waran shaqo ma gulay had ma wax ceeb waaya mudar adi fiiri masaajid meesha isna masaajid joogmut ماشي مساج مامي ما قولوا في اللغة جس دربي سقماين أو ميكروفون صرتي ألقوا في دوجو الله يحفظه أقرأ والله بقول شيء أوكي نك حال رموت دو الشيء هاي وحيابا قارن درصده هبلاش رموت واي يا هبلو ساس واي تماذا قابل نسا أديك محاكا قال صاري هو يقف تستتيب ولا هذا حكم كليد وعسكري وسباشي inaad awood ku leedahay hadda isu joogto dhalad awood baa ku leeyahay as aragno wallahi bila tara baadira ku balsana shantayo lambarka aad ma ku sheega heer shalay mu ajir badro wallahi ku sheega ha shantay taga kan qaad ha film ku jibta shantay shantay shanti nagar waa ka saa ma shantay waxa la bidaar waa ka saa ma shantay waa laadarka walkiis waa ma garad marka shantay allah marka heesti waxa inoo أحوال شنطاي وحال لها شامل أدو بصدق أدو كهذا في بقوله في حام كلها يا هاي سكوي مانن حمر ياكسي حمر ياكسي أنا كله ما أنت كدقايو يا أنت ما كبحيبه السنة جالس كذوبة أيانتان أرين يرو آدي معناها قلوب تسي يجرينا صوف صح جالست waxa soo bixin hadaa ila aragtay nin kala moogi intii TikTok daawata intii Facebook daawata moogi Facebook hadii la geeyna waa kaas horta koo waxa arkay sheekh oo dhakanay waxa ay sheekhaas maroo magaciisa soo qaato uu igu soo qaldamay France ka qaaday marka sadaqadii dadkii waxba ku jira shaqo iskaga jiray France ka qaaday sare
waxaa dhacday odagan wax kale kuma dhaliilaayo waxaa leeyahay waa fiican tahay jafowgaa wuu fiican yahay dadka saa ula hadlaysid iyo backgroundkooda dambe saa ugu daba tegaysa wuu fiican yahay microfonkaaga wuu fiican yahay codkaaga soo daynaysa wuu fiican yahay laakiin baytullah kasoo dhex bax masaajidkan oo keligaa microfonka bis inta kuu taagan oonan lahayn culamo kaloo gadaal daba meesha fadhiyo oo shacab aana lahayn oo kaamirada aan lagu aadinin oo codkaagu pure aana soo gaarayo horta waxaa meesha iska cadaysa masaajidka keligaa inaan leedahay waa barintaa ku dhistay halkay aniga shakhsiyadeyda inuuna wax u dhimin anigaan ii cadaynay masaajidkaas keligaa inaa kasoo dhex hadishid aa noo cadaysay mahabarintaa ku dhisto keligaa salaad ku tukataa nin fikrada ku siina liicaad ahaana fikrad ku siina taanantiyaa leedahay jafowga wuu fiican yahay editinkaa wuu fiican yahay kaamiradaada way fiican tahay qofka wax kuudu wuu fiican yahay gacantiis way fadhisaa laakiin masaajidka kasoo dhex bax intaa rabto waa heshee imaankaaga cune intaa rabto waa heshee kasoo dhex bax background weyn sameyso ma fahanta annagaba sariiraha wax kusoo duugoonaa billah caleyk ma fahanta oo video deg deg emergency marka nagala rabo ma fahmaysaa lacala haddaa video emergency lagaa rabo adoo salaada ku jiro haddaa rabta masaajidka kusoo dhex daba haddaa rabtida laakiinse kasoo dhex bax baytullah kasoo dhex bax dadka kusoo dhex ceenayso oo gabdhaha kusoo jaa-ifeynayso oo wiilasha kusoo jaa-ifeynayso oo qof aadan wanaag aadan ka sheegin uusan jirin ayo dadka qaar wanaag samaysteen ma fahanta kasoo dhex bax baytullah kasoo dhex bax waxaa doonta nagu tilmaama daartidii laakiin baytullah kasoo dhex bax reactionka masaajidka ku dhex sameynaysa jooji oo dad kale oo shacaba meesha fadhi aana jirin oo culamo kaloo meesha oo fadhisa aana jirin oo kaamiro lagu aadinayn masaajidkan kulle qabiilkaaga ku dhisay kasoo dhex bax fikrada ku siina background gurigaaga sameyso magacaaga sameyso soo dhigo soo fadhiiso kursi soo fadhiiso wallahi lacag badanaa sameynay magaca ilaahay lacag badanaa sameynay ana hadda ku dhahay ma fahanti background sameyso laakiin masaajidka kasoo dhex bax waxaa doonta nagu tilmaama sheekaas intaas ugu dhex bax sidoo kale waxaa arkay laba dhalinyaro ah oo tiktok oo ku arkay oo 3 qofood oo magacii maamuusba leh ku tilmaamaya inay sheedaamada caabudaan nimayo ilaahay ka baqa nimayo ilaahay ka baq runta idin sheegaayo magaca ilaahay oo ku dhaadaysan ramadaan ahaan lahayn toos anaa idinka dhex bixi lahaa sheedaamada caabudaan kulahaa samiixa qaliil iyo maslax mideeye iyo cumriin warmaad waalanta midaa soo yiri 3 qofood sheedaamada caabudaan cadeena keena mid kaloo shiiqa soo hadlay nin culimada dhalinyarada yaryarka ee raba inay soo caanbaxaan qamiisyada ku faa'iideysanayo iyo imaamadaha ku faa'iideysanayo waxa la yaab midkii ugu qosla badnaa wuxuu yiri midka labaad waay markuu kii kale ka soo maqlay samiixa qaliil iyo maslax mideeye iyo sheedaamada caabudaan markuu ka soo maqlay asna mid kale cusub inuu imaado kulaha sax weeyo samiixa qaliil miina arkin miya kulaha suu ilaahay wax ugu fududeeyay oo qofka ilaahay gacantiisa u miciyay oo ilaahay gacantiisa wax geliyay oo sadaqa dhiibanayo oo muslina oo ognahay oo shahaadanayo ma leedahay micnaha sheedaanu caabuda haddii diyaarad samiixada diyaarad raacdo oo maslax noloshiisa macaanta oo cumreen ayaanta youtube-kiisa soo shitay oo ruwaayadiisa ka sameysanayo ma sheedaamada caabudaan soomaalida marka haddaan dhalinyarada yararka hadda soo baxay culimada iska dhiga haddaan la iska dhicin waraa youtube ley waxaa leeyahay iyo kuwa tiktok riska iska dhiciya raggaan iska dhiciya raggaan usoo hadla iska dhiciya haddaa saa aamusnaatiin wallahi billahi talla idinkaa lida jarjara dadka shaydaanka caabuda dad baa shaydaan caabuda haye yacni sidee ayuu caabudaa ahaan aan usoo bandhigay samiixa khaliil iyo maslax midaye labada arrimeed ay gacmahooda ku sameynayeen waa assalaamu calaykum ta lagu salaamo ibliis aniga ninkan aad sheekh leedihiin wax cadayno keen horta ma arkayo cadaynta waan u ogolaana cadayn waa keen laakiin waxaas cadayn ma arko arrintan uu cumreen sameynayna waxa weeyaan waxay ka micno tahay anigu naftayda waxaan u dhiibay shaydaanka ibliis ayaa naftayda u dhiibay waa igu gafaysaa hal mar maaha 2 mar maaha 3 mar maaha maalmaha aad baad igu gafaysaa aad iyo aad waana wax laga calool xumaado aan markii hore cumar waxaan uga yeedhay si kaftana iyo qoslaan uga soo jawaabnay arrinkan waxay ahayd anigu waxaan u haystay shakhsi ahaantayda maslax dee waxaynoo sheeka tiktok oo meelaha dee iska dhex bahigo waxaan ku weli kaftan oo meelahaasi waxaasaan u haystay laakiin arrintu serious bay taagan tahay serious waxaan ku weli waxaa aad iyo aad qalbidab iyo niyadjab igu noqday qofka bini aadanka ma xuma inuu isagu waxyaaba uu
suu wax u qaatay inuu soo bandhigto laakiinse waxaa fiican markaad wax halis ah aad sheegaysa inaad ka taxadirto oo hadalkaaga waxaan ku weysi wanaagsanaa biniaadankaad u gaarsiisay ayaa caddaymaha aad sheegaysa inay noqdaan qofkeen biniaadana wax qancin karaya waxaan aada uga sii xumaaday oo niyadjab u noqday dadkayga walaalaheena Soomaaliyeed oo sheekooyinka noocaas ah aaminaya kuna falcelinaya kuna xadgudbaya diinteeda iyo shakhsi ahaanteedana xadgudub aada weyn u gaarsiinaya waxaa looga xumaada qof dhan oo ibnu aadam ah oo muslim ah oo islaam ah waa laga fiican yahay waa laga qurux badan inaad diintiisa waxaad ka sheegto haddaad waxba ka garanayn aniga ninkan aad sheekh leedihiin wax caddaynoo keena horta ma arkayo caddaynta waa uma ogolaana caddayn waa keena lakin waxaas caddayn uma arko haddaa waxaasi caddayn hadday noqonayaan waxay ka dhigan tahay Soomaaliya oo dhan ba oday luminaariya ama sheegay la shaqaysta waxa uu keena meesha farataagtaag waxaasi dhalinyarta waxaa nahay jiilka dhammaanah waxaasna waxaa loo isticmaalaa gaangaan iyo raab iyo maxaa like xaraaba loo isticmaalaa like macnaheedu ma aha wax diinka bax ah ma tilmaami kara wax shaydaan lagu xusaayo ama lagu dayanayo no uma arkayo qofka bini'aadanka diintiisa lagu xadgudbo horta mid baa idin sheegaya waxyaabaha rabto ku hadla wixii aad rabtiin social media la imaada ama jaaladiina ama fiiskiina wuxuu doonaa idiin galo laakiinse waxyaabaha qaar waxaa jira aan lagu gaftin qof bini'aadan oo islaam inaad islaamnimo aad ka saarto afkaas ka saarto meesha meelaha la soo fadhiisa adigoo qof weyn ah oo dadka kale eeg taageerahayga haddada ahayn dib uma arko qofku hadduu taageerin waxaan ola hadda iska kama hadlaya laakiin dadkayga la hadlaya iyo Soomaalida haddaan haday taageerin qasab ma taageerto waa caadi qof walba qof baa taageera filan walba taageeru leeyahay qofna ma taageero laakiinse haddii aad taageero ii haynin ama aad taageerin macnaheedu ma aha in aad iga xadgudubto oo xumaan haddii meel lasoo dhigo inaad adiguna tiraahdo dee aad cadow iga noqoto dee waxyaaba xun aad aaminto oo adiguna soo tiraahdo dee